kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya oo aan idinkaga soo gudbinayno magaalada Ankara ee dalka Turkiga. waxaana inta aan ku guda jirno wararka aan idin soo gudbin doonaa qodobo dhowr ah oo ay ku jiraan xaalka doorashooyinka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay hadal haynta ugu badan ay ka jirtay ama ay ka taagan tahay. wararka kale waxaa kamid ah ciidanka Itoobiya oo qarax lala eegtay Cabdi Xaashi Cabdilaahi gudoomiyaha aqalka sare oo sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto halkaasna lagaga baxo mugdi ku jiray in doorashada ama muddo kororsi ay dhacdo. waxaa kale oo wararka aan idin soo gudbin doono kamid ah hadba intaynu ku guda jirno qodobo wixii inagu soo kordha wararkayna inta aan idin soo gudbinayno. Galmudug waxa ay mamnuucday ka ganacsiga waa iibinta isticmaalka guud ahaan maandooriyaha si gaar ah khamriga oo fara ba'an ku haya sida wasiirka amnigu uu sheegay deegaanada Galmudug gaar ahaan Gaalkacyo. isla khamri kale oo aad u fara badan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. wararka kale waxaa kamid ah falanqeyn aan ku sameyn doono doorashada Soomaaliya xilligeeda ma ku dhici doontaa mise xaalku waxa uu noqon doonaa cakirnaantan iyo sida hadda uu xaalku yahay. wararkan intaan ku guda jirno waxaan ka codsanaynaa channelkan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya. waxaana diyaar u nahay inaan kuu soo gudbino wararka oo aan durbadiiba si degdeg ah idinkugu soo gudbinayno hadba dunida meel kasta oo aad ka joogtaan. haddii aan ku bilowno hadal haynta ugu badan Soomaaliya siyaasadeeda marka la eego waa doorashada. sidaas daraadeed Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo ka hadlay arrimaha xasaasiga ah ee doorashooyinka 2020 sida ay warbaahintu qorayso. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo wareysi bixiyay ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka gaar ahaan doorashooyinka soo socda ee 2020-2021. ugu horeyn Senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi afhayeenka golaha aqalka sare ayaa shaaciyay in doorashada baarlamaanka iyo midda madaxweynaha lagu qabanayo waqtiga saxda ah ee loo qorsheeyay. sidoo kale wuxuu tilmaamay in aysan jiri doonin doorashada soo socota ama aysan saameyn doonin oo aan marna la maqli doonin dib u dhac ayaa ku yimid doorashada. sidaas daraadeed waxa uu sidoo kale ka warbixiyay ama warbixinta la filayay in laga dhageysto guddiga doorashada inay dib dhacdo uu ku sheegay arrimo farsamo laakiin kala fadhiga toddobaadyada soo socda la qaban doono ee baarlamaanka ayuu ku cadeeyay in ay noqon doonto mid lagaga dhageysto waa baarlamaanka Soomaaliya waa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ee arrimahaasi la xiriira doorashada iyo jadwalkeeda iyo qaabka loo qorsheeyay marka la eego. gudoomiyaha aqalka sare ayaa xusay in aysan jirin wax duruuf ah oo isbiirsaday oo ay ugu daran tahay cudurka dunida oo dhan halakeeyay oo uu ku sheegay in dunida marka uu halakeeyay doorashooyinku sidooda ay u socdaan oo wax saameyn aysan yeelan marka laga soo tago isku socodka dadka iyo dawladaha marka la eego maaragtay shucuubta dhan ee adduunyada. laakiin taas bedelkeeda ayaa waxa uu sheegay in shaqadii dawladnimo wadan kasta ay u socoto oo Soomaaliya iyo madaxdeedana aan laga ogolaanaynin in doorashada dib loo dhigo. Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa hoosta ka xariiqay in muddo kooban ay u harsan tahay dardargelinna ay ku sameyn doonaan howlaha horyaalla isla markaana uu gudan doono waajibaadka saaran aqalka sare ee isagu madax ka yahay baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabkana uu arintaas oo kale u soo jeedinayo. waxaad la socotaan wararka hadalkan ayaa waxa ku soo aadaya iyadoo beesha caalamka iyo xubnaha mucaaradka ah ay walaac xoogan ka muujiyeen diyaar garowga doorashada iyo inaan loo diyaar garoobin 2020-2021 iyaga oo ka digay in muddo kororsi loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ah ee dalka. dadka sida weyn arrintan uga soo horjeeda ee diidan in doorashada raba in doorashada waqtigeeda lagu qabto ee ka soo horjeeda in doorashada dib loo dhigo waxaa kamid ah madaxweynayaal hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxaa kaloo ku jira hogaamiyaha mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay in dawladdu rabto in ay doorashada dib u dhigto sidaa daraadeedna aan laga aqbalin sida uu warka u dhigay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame war qoraal ah oo dhowr jeer oo kala duwan soo dhigay barihiisa bulshada gaar ahaan Twitter iyo Facebook ayuu wuxuu ku sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dawladdu iminka ay weli u sii tafaxiidanayso sida uu yiri in doorashada aan la qaban laakiin taas bedelkeeda muddo kororsi ay sameeyaan.
arrimaha doorashadu waa muranka ugu badan waxa ay ka taagan yihiin sida idin sheegay oo wararkeenu inta badanna ay quseeyaan haddaan eegno isla doorashada beesha caalamku waxa ay ka muujisay walaac xoogan ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo Twitterka war soo dhigay wuxuu yiri waxaan aqbalaynaa ma ahan waana wax laga xumaado walaac ayaan ka muujinaynaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhici weyso muddo kororsi in la sameystana waxay meel ka dhac ku tahay dastuurka dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen oo dunidu inteeda kalena ay u aqoonsan tahay dowladnimada Soomaaliya iyo dastuurkaas inay ku dhaqanto laakiin taas haday dhici weyso waxa uu sheegay in sharciga lagu tuntay oo wax la aqbali karo aysan ahayn oo uu yiri ma aqbalayno inaan isha ka fiirsano in doorashada waqtigeeda ay ka dib marto sida daraadeedna ogolaashaheena marna kuma jirto in doorashadu ay dib u dhacdo waxa uu sidoo kale ogeysiis ama fariin afka qalad wax lagu yiraahdo CC uu ku siiyay waa ergeyga qaramada waa xogayaha qaramada midoobay ee Soomaaliya raali noqda waa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayuu warbixin uu soo dhigay uu sheegay in wax la aqbali karo aysan ahayn oo uu maaragtay mucaaradka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed aysan iminkaba ogolayn in doorashada iyo dimuqraadiyadda inta la hareer maro aan doorasho la qaban sida daraadeedna walaacaas uu qayb ka yahay xildhibaano kala duwan oo ka tirsan golaha shacabka oo ay kamid yihiin xildhibaan Maxamed Idriis Ganey senator sare oo aqalka sare ka tirsan oo lagu magacaabo Ilyas Cali Xasan xildhibaano kale oo golaha shacabka ka tirsan sida Cabdiqaadir Cosoble sidaas oo kale xildhibaanka kale Maxamuud Beene oo isaguna kamid ah golaha shacabka mucaaradkana ah dhammaantood warar ay soo saareen waxa ay ku yiraahdeen ma aqbalayno doorashadu inay dib u dhacdo sida daraadeedna wax loo dul qaadan kara ma ahan in xaaladdu ay iska noqoto mid laga aamuso oo ay noqoto arin marka afka qalad lagu yiraahdo waa marka si loo dhigo arrinka siyaasadda la eego arrin fadhiida ay ku tilmaameen in doorashadu ay sideedii iska sii ahaato oo aan haba yaraatee waxba lagu sameyn horumar ah marka la eego qaabka loo wajahayo doorashada sida daraadeed wararkeena ayaad la socotaan oo arrimaha doorashada ayaa ugu badan walaaca ugu xooganina uu yahay dowladda ay ku jiraan Sweden Belgiumka Faransiiska iyo dowlado kale oo ay kamid yihiin Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen in aysan suuragal marna ahayn in doorashada dib loo dhigo dowladahaas oo idil waxa ay tilmaameen in dimuqraadiyadda oo lagu tuntay sharcigii oo la dumiyay iyo dastuurkii oo la hareer maray ay tahay in doorashada waqtigeeda aan lagu qaban iyada oo aysan guddiguna aysan iminka shaqo bilaabin waxay ku tilmaameen inay tahay tallaabo dib u dhaca oo kalsoonidii lagu qabay luminaysa Xaliim Yarey oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo goor sii horeysay dhowr jeer hadashay waxa ay tiri lagama yaabo in doorashadu ay dib u dhacdo inaguna waqtigeeda ayaan ku qabanaynaa sida daraadeed dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuba niyadda ha u sheegaan khayr ayay warka ku tiri waxa kale oo dadka hadla aan ilaahay hadda wararka laga haynin ee saameynta kula doorashadana ku jira madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo beesha caalamku baaqi u soo jeedisay xubnaha mucaaradka wararkooda iyo guud ahaanba siyaasiyiinta ka dhaga dabooshay oo yiri warkaasi weli ima gelin iyo erayo kale lamid ah oo aan ka wado inuu ka aamusay madaxweynuhu oo uusan marnaba ka hadlin baaqaas iyo walaacaas la soo jeedinayo ee la xiriira arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxaad la socotaan wararkeeni oo si toos ah aad kaga daawanaysaan YouTube-kan fadlan YouTube-kan hadii aad ku cusub tahay subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya wararkan oo aad heshana waxay ka dhigan tahay inaad dunida iyo guud ahaanba Soomaaliya aad xaaladeeda la socoto oo aad si update marka loo eego xaalku sida uu yahay aad ula socoto wararkaas channelkeena subscribe saaro hore ayaan kuugu sheegay waana intaasi inaga dhiirigelin ay noo tahay adigana waxay ku tahay warar helid ciidanka Itoobiya ayaa dhanka kale waxa la eegtay qarax aad u culus gaar ahaan gobolka Bay iyaga oo maraya faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxaysaa qarax nooca miinada ah oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ku sugan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay qaraxyada oo ahaa kuwa isxiga lalana eegtay kolonyo ay la socdeen ciidankaasi oo ka soo ambabaxay degmada Bardaale kuna sii jeeday qansax dheere oo gobolka Bay ka wada tirsan ayaa qaraxyadaas lala eegtay ma cadda khasaaraha ciidamada Itoobiya soo gaaray weeraradaasi qaraxyada ah ee lala eegtay marka loo eego balse deegaanada deegaanka ah ayaa sheegay in ay iyagu arkayeen
maqlayeenba jug culus oo ciidankaasi la gaarsiiyey marka loo eego dhawaqa iyo culayska iyo saameynta uu lahaa qaraxii lala eegtay. Al-shabaab sidii caadada ahayd waxa ay sheegteen qaraxyadii ama weeraradii lagu qaaday ciidanka Itoobiya, iyagoo dhanka kalena qoraal ay soo saareen ku qeexay kuna sheegay in ay iyagu ahaayeen kuwo weeraray ciidanka Itoobiya, gubeenna mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamadaasi xilli ay marayeen duleedka degmada Bardaale ee gobolka Baay. Ilaa iyo haddana ma jiro war rasmi oo ka soo baxay. Marka la eego waa arrimaha kale la xiriira marka loo eego dhanka ciidanka Itoobiya iyo dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeedba. Al-shabaab dhibaatada ay sheegeen inay gaarsiiyeen ciidanka waa ciidanka Itoobiya. Sidaa daraadeed galmudug ayaan ku laabanaynaa. Wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi waxa uu ku guuleystay isbaarooyin muddooyinkii ugu dambeeyay yaalay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug in la qaado, kuwaas oo saameyn weyn ku lahaa dadka deegaanka, iyadoo qabiil in la isku laayan Gaalkacyo ay ka ahayd wax aan innaba caadi ahayn marka loo eego qaabka la isku dagaalo iyo sida gacanta la iskula tago waa mar walba isla galmudug ayaa magaalada Cadaadana waxaa lala gaaray gargaar degdeg ah, iyadoo diyaarado gargaar sidan ay halkaasi tageen. Sida lagu soo waramayo, gargaarkaasi ayaa waxa uu sabab u noqday in dadkii Cadaada ku waxyeeloobay loo gurmado, iyadoo dhanka kalena lagu soo waramayo in xaaladdu iminka ay tahay mid soo hagaagaysa marka la eego dadkaasi loo gurmaday iyo sida ay noloshooda iminka dhakhaatiirtu ugu maareynayaan waxyaabaha daawooyinka ah ee iyaga loo geeyey. Cadaado wararkeedana waa waa in loo gurmado iyo waxyaabo badan oo kale oo lamid ah, oo ay ka mid tahay in Cadaado ay u baahan tahay gurmad guud maadaama uu saameeyay cudurka dunida oo dhan wada halakeeyay. Wararkeennii ayaad la socotaan. Haddaan eegno isla galmudug oo aan sii joogno, magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa ku kulmay laba dhinac oo wasiirro ah, wafdi heer wasiirro ah, kuwaas oo kala matalaya galmudug iyo maamulka waa maamulka Puntland iyo maamulka galmudug. Labada maamul ayaa xubnaha kala matalaya waxaa kala hogaaminayay wasiirro ka kala tirsan labada maamul oo ay ka mid yihiin wasiirka amniga galmudug Fiqi iyo wasiirka arrimaha gudaha Puntland, oo ay labadooduba ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa in Puntland ay dhanka amniga iyo wada shaqeyn guud ee la yeelato galmudug, oo ay iyagu markaas daris wanaag in ku wada noolaadaan ay soo jeedisay maamul goboleedka galmudug. Guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii doorashada ayaa qodobada ugu waaweynaa. Muqdishona waxaa lagu qabtay khamri iyo waxyaabo kale oo maanka dooriya. Dadka ciidanka halkaas jooga saraakiishu waxay ku baaqeen in arrintaas laga waantoobay, ciddii lagu qabtana sharciga lala tiigsan doono. Guud ahaanna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararka. Nabadgelyo.